sagaashan wiil oo ka mid ah dufcada labaad ee baraamijka shaqo qaran ee gobolka Togdheer ayaa laga ambabixiyay magaalada Burco kuwaas oo tobabar ugu kicitimay xarunta carbiska Dhalinyarada Shaqo Qaran ee Dararweyne waxaana dhalinyaradani sii Sagootiyay maamulka gobolka Togdheer isuduwaha wasaaradda waxbarashada taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer iyo taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka Somaliland waxaanay kula dardaarmeen inay tobabarkan u qaataan si habsami leh waxa markaa loo baahan yahay inuu arday waliba ama shakhsi waliba uu ogaado inuu sido oo xambaarsan yahay magacii gobolka inuu sido ilaaliyo markaa sumcadda shakhsiyadeed ta gobolka uu ilaaliyo asluub wanaagsan dhaqan fiican hal adeegnimo iyo karti inaad la tagtaan baan idin kula dardaarmaynaa ciidan baad saacada laga bilaabo maradaad ciidantiina aniga waa iga dhowdihiin dadka kaleeto raganimadu waxay ku jirtaa meel adag waxaan aad idinku rajaynayaa inaad noqotaan dacfadii ugu adkayd ee ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd baan xagga shaqada qaranka ka soo baxda ayaan idin rajaynayaa inaad horseed noqotaan oo qarankan iyo gobolkaba aad u soo haysaan wanaag iyo wax lagu tartabo iyo taariikh wanaagsan ida u soo haysaan ilaahay idinka rajaynayaa dawladda waan ku hambalyeynaa madaxweynaha sida wanaagsan ee loo maray iyo hawsha wanaagsan ee ka socota in dhalinyarada la shaqo geliyo la dhiiri geliyo waxa weeyaan ay dalka ka noqdaan shaqaalihii wadanka inay ka mid noqdaan oo waxa weeyaan ay noqdaan shaqaalihii dalka oo dhalinyaradu wax u baratay dalka ka mid noqoto shaqo qaran aad iyo aad baan ku hambalyeynaa gobolka matashaan oo wali gobolkii rag aad matashaan aad adkaataan oo noqotaan rag adag oo ka yimi goboladu way tartamayaan gobolkii rag ka yimi waxa wax la qaybsanaysaan oo tababar la galeysaan kun arday oo ah ardaydii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland goboladiisa kala duwan ka timi waxa la rabaa rag adag inaad noqotaan oo si adag tababarka u soo qaadataan ina akhlaaq wanaagsan iyo amal wanaagsan iyo cibaado suuban ah kula dhaqantaan oo la joogtaan meesha la idinka rabaa macallimiintiina waxay baraysaa iyo maamulka dugsigaba mashruucan shaqo qaran waa mashruuc kamida mashaariicda ugu waxtarka badan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kana soo maaxatay maskaxda madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigii uu kaambeynka ku jiray ololaha waanu ka dhabeeyay waa ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa ugu mahadnaqaynaa ka dhabeynta uu ka dhameeyay iyo mashruucaas oo noqday mashruuc successful ah oo maanta dufcadiisii labaad ay galayso qaar ka mid ah dufcada labaad ee baraamijka shaqo qaran ee gobolka Togdheer oo si gaar ah ula hadlay bulsha TV ayaa iyaguna dareenkooda cabiray maanta dareenkaygu aad iyo aad baan faraxsanahay maadaama ka mid noqday ardayda Janiska oo heshay inay Janiskan ka soo faa'iideystaan halkan waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu noo suura galiyay inuu qalinkayagu shaqeeyo waxaan kaloo uga mahadcelinayaa waalidiintaydii intaas oo dhan igu soo tabacayay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si weyn hawshan uga shaqeeyay maskaxdiisuna ay ka soo maaxatay sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa waalidiintaydii igu soo tacaabtay aniguna waxaan balan qaadayaa inaan ka soo baxo waajibaadka qaranka sida maxay tolay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo suura galiyay inuu barnaamijkan hirgalo dufcadiisa labaad waxaan sidoo kale maxay tolay ku faraxsanahay inaan ku soo boodo barnaamijka shaqo qaran Axmed Salebaan Carab Axmed Kaafi Bulsho TV Burco.